نقرأ لهذا بدنا بآلة فيسبوك لايف تو لايف برامجك كان بدنا واحد يقرأ إن واسكع إلى البداية هاي إن مرة بدنا إن هودا أي أسكتي سيد عاركيس عن مركا قاركود مركا وايد قرها تقولنا مركوات برلبات يا مرسد حاد بنقرها لهذا هدي برامج النقطة هدي ريان ست توصل بالعمل دونا هدي برامج النقطة برامجك سلاف يا نسو جرين دونا هدي برامج النقطة برامجك وريها نكوع سني sidoo kale barnaamijkan waxtarka wariyaha qodobo muhiim ah ayaan kusoo qaadanaa oo ay ka mid tahay waxtarka uu leeyahay wariyaha bulshada Soomaaliyeed qaab nuuca wariyuhu uga qayb qaadan kara horumarka deegaanka waxa barnaamijkan sidoo kale qayb lixaad ka qaata baahintiisa oo si baahiya Al Jazeera Somali News oo qayb lixaad ka qaata sidoo kale barnaamijkan waxa aad si live uga daawan doontaan barta YouTube-ka hadii ay barnaamijka ku kaydino صاحبك يا خضر دب قال له قول لي هديه برالك النقطه هوده وحمد السلام عليكم وعليكم السلام برادك ونقا قاي marka uu soo bilaabanayna Cabdi Qaadir ku soo dhow barnaamijka waxtarka wariyaha waan ku dhawaa walaalkay thank you very much anna waan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad bulshada u adeegtid oo aad dadkan iyo ama dhalinyarada u dareensiisid ama qiimaha uu leeyahay wariyuhu ama faa'iidada bulshada u leedahay saxaafadda واتاي عاوز سؤال بدن بينو هدي برالك النقطه قاعده دغ دونا هدي صعبته nagu xiran waa ka raali gelinayna duwaga dhankeygi dhankaaga awan ka raali gelinayna marka Cabdi Qaadir hadda dib ugu noqotid adoo raali ah way hay saxaafadda goorta saxaafadda ku soo biirtay wax dhibaato aad kala kulantay qaab nooca ilaa heerkeed ka gaadhay xogaa yar noo gudma adoo raali ah inkastoo aan u sheegay hore haddana saaxiibada dib ayay u soo laaban doonaan qaarkoodna inaga maqan yihiin saxaafadda markii ugu horeysay aan la jaan qaado inkastoo saxaafadda horto waxaan maqli jiray saxaafaddu ma aha cilmi la barto laakiin waa hob qofku uu yeesho marka hobkeeda weligay waa lahaa ilaa 9 jirkeyga inaan saxaafad mar uun ka soo muuqdo wax u eg xitaa marka saxaafaddii markii ugu horeysay aan saxaafad soo galan waxay 2004 idaacadii markaa xaafadeena ku taalay ayaa ii suurtagelisay walaalkay Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Yaasiin oo ku dhintay qarxi the village halkaas igu horeysay VOD wax yar kadibna dalkii waa isaga tagay waxaan aaday Nairobi oo markaas kadibna aan muddo ka fadhiyay laakiin waxaan la soo jaan qaadnay ama aan aan ka ahaa aniga saaxiibo fara badan Saciid kamid yahay Saciid Maxamed adoo maqlaayo oo ah milkiilaha website-ka caanka ah laacib.net oo haatan Soomaali fara badan ku xiran yihiin dadkii la jaan qaaday oo Afrika u qaabilsan ahaa ilaa iyo dadku ay ka barteen marka website-kaas ma jirin marka ama waxa jirtay baahi saxaafadeed oo dhanka sportska Soomaalidu waxaad arkaysaa inay jirto marka kun website oo kulligood siyaasadooda qoraayo marka waa u fikirnay inaan sameeyno website ciyaara ah lalintu maadaama ciyaaraha xiiseeyaan marka Saciid taacibkay oo qaaradda Asia ku nool ayaa fikradaas lahaa qarashka ugu badan ku bixiyay laakiin aniga aqoonteeda iyo gacanteeda ayaan ku caawiyay waana maanta website-ka dabcan waan filayaa website-ka lagu daawashada badan yahay marka 2 sano kadibna waa iskaga soo tagay dalkii iyo qaaradii intaba marka halkan inimidna dabcan waxaan gacan mar ku yeeshay TV-ga caalamiga Universal haatan laakiin waxa uu moodaa inaan ahay retire واتاي برنامج ما تسوي انت يونيفرسيتي في سبورتسكا كفتك سبورتسكا سو سما هي هذا مسا خلدنا سوعا كفتك سبورتسكا maxaa ku keentay fikirkaas kulli aad laha barnaamijku aan maynay طبعا aniga lahaa Soomaalidu sida hore kaaga dhawaajiyay waxay jecel yihiin mar walba wax cusub in wax loogu sheego haddii Soomaalidu maanta la dhaho gurihiina ayaa lagu soo ridaya ama laga soo tuuraya albaabka sida Europe iyo America dabcan wadanka joogto adiga hadda ma garan karo warqad cusub ayaa newska lagu soo ridaya Soomaalidu way qaadanayaan hadii ay bartaan laakiin dabcan xiisaha meesha ka baxay marka Soomaalidu waxay jecel yihiin wax cusub in loogu soo gudbiyo ama nidaam cusub ama qaab cusub in loogu ogeysiiyo waxa ay jecel yihiin sidaas u go'aansaday waxa la dhaho kaftanka sportska waana wax keen inay Soomaali far badan xiiseysay inkastoo maalmahan dambe waxbarasho aad ah aan galay haddana hal bil baa ii hartayo waxaan rabaa sanadka cusub inaan dib u bilaabo hadduu eebisaan waa tahay kaftanka qaab nooca markaaba adiga iyo Universal ka dhaxeeyo wada shaqeyn Universal waxaan ahay dabcan
marka kaftanka sportska laga soo tago wakiilka u jooga dalkan Finland oo qaabilsan marka adduunka maanta uu hormaray ma aan maanta in qof loo shaqeeyo waa laga hormaray waxa la rabaa wariye kasto Soomaaliyeed waxa uu sheegayaa hadii uu Afrika joogo ma garan karo in duruufta ama dantu ay ku qasbi karto laakiin wariye walba oo Europe ama America jooga wax macnaa ma soo kordhiso in qofku $200 ama $300 ama $150 ku shaqeeyo maadaama wadamadan fursadaas ka badan laga heli karo waxa la rabaa hadii aad wariyaba tahay laba mid aday ka falantaa waa hadii aad joogto Europe ama America inaad saxaafadda isaga tagtid oo dantaada kala qabsatid waa way inaad saxaafadda wax ku soo kordhisana oo qaab kale u shaqeysatid waa way marka Universal TV London uu ku yaalaa annagu fiilana deganahay dabcan waxaan go'aansaday inaan program aan leeyahay oo fikirkiisa leeyahay inaan halkaas iyaga waqti ay iga siiyaan aan ka deesto sis aan ku macaamilo aniga xataa mishaari hadana waxa ii dheer fikirka inaan aniga leeyahay oo aan kula macaamili karo ma garan waa tahay barnaamijka kaftanka waxa saameyn badan buu dadku ku yeeshay dad badan baa ka cabanayay waxay lahaayeen barnaamijka waana ku sabcadeena ku jiray waxyaabo noocaas saameynta lag ku yeeshay kuwaas والله ما أنت إذا عاد أدونك وقف كدير أما لما إذا أدونك وقف كدير و VOA يا BBC يقول لفتر كود ضد بقى عبانية ولا دبعتي نقول هايان وتنتي قدام بيسو BBC دو أي علشان سومالي لان تجين وكيلك الصعدة سيدا عقد كوهاي سيد أما كوهاي أما دتك كوهايان ولا ده هاي قابك أنا إنه ولا هذا الشيء أما سيدا سياسة سومالي لان أد كأمي سنتهين نما قنعنا نجو وأنا سكلا حدكتين VOA سيدا كلا ولا عوضة إذا عذا حمر كويا لقى عوضة مركا أفضل بحدو برنامج كيس طبعا ضدنا وكقسلسين إساء ضدنا وكعرونا يعني وأن جين صعد. واتها إذا عد يتيف واحد مدين فرق وين ودحيو سيدا إنه نقانو إذا عد وإذا عد تيفينا وتيفي شاشة لسك داوضو وحياة بدن لقى صوبان ديجو روحانتينا برنامج كاجا أرمى بدن بقصاب سنة واحد كسو قاعدين يسي ضد بدن ضد وريالة dad fanaaniina dad badan baad ku soo qaadanaysay marka xog nooca xogta marka aad doonaysid inaad raadiso qaab nooca xogta u raadin jirtay wallahi horto inkasto barnaamijka iyaga kaftanka sportska wuxuu quseeyaa siyaasadda wuxuu quseeyaa fanka wuxuu quseeyaa madadaalada noocyada kala duwan marka wax weynba ma aha markii isbuuci wax soo deysid wixii isbuucaas dhaco dhanna aad kala socotid ama TV-yada ama idaacadaha ama website-yada marka way ku fududahay inaad isbuuci mar adigoo intaba soo fiiriyay waxa ay qoreen badabada ugu fiicnaa inaad soo deysid jimcaha ama sabtiga ama hadda isbuuci hal jeer adiga wax culus ma aha anigoo markaa xiganaya ama website aan ku kalsoonahay ama TV aan ku kalsoonahay ama idaacad aan ku kalsoonahay وأنت برنامج هذا هو برنامج من الدالة أو من الدالة. ما هذا عاي أسبوعا أو كلا أو عيار لقى جواي. ما هذا عاي أسبوع لصودا. وات هاي مركا نوصل نقولنا وجود قبل مركا هذا ديم موجود بدون تاع يونيفرسال مثل أساس كل ما. ما أنا جا وحبرشة دي يقولي دراتي هل بلا يهرت مركا عرب سنة كعصب إيو فرسمة عصب إسقى وطو ضد كماد وأنا أوجه وأنا درسنا هاي. dad badan oo daawanayna dabcan waan ogahay waxa ay aaminsan yihiin barnaamijka inay wixiiseen message badan isoo diraan in barnaamijka u baahnaayeen dad badan oo dhaliishan way jiraan oo dhaho ilaahay baa naga wada kuwana 85% dabcan laakiin way wixiiseen waxaan ku wargelinayaa halkan anigu halka fursadan ka faa'iideysanahay inaan bil kadib ama sanadka cusub la kowsan doono ama bisha 12aad la kowsan doono insha Allah haduu ilaahay raali ka noqdo واتها وان شاء الله ونشود وين دونا هدي ما لقى يا بينات قاب كان حد كوة دينا كبد الشيء وصورة قل إن فرسمة كلا لا إماده وصورة قل وإسك حيلد ملتري يا يا لكن وحيو بدن تاين سيدان كسي وضو كسي قرحية أو سرهم أنا طبعا أنا أسوق بيو أنا جونا قفنا بدنا قفك جعلنا كم أمانة واتها بدنا برنامج كاغو قرال بو كسابسنا iyo music iyo xabiyaan noocaas live isagoo live ma soo gelin ma soo deyn karaa kula tahay waa waxyaabaha aan ku tala jiro isagoo live oo sidan daawado waa ku tala jirnaa waliba aniga keligii aan sameynin oo wariyaal kale oo Soomaaliyeed aan la samaysto laakiin hadafka ugu weyn waxa weeye inaan YouTube programkaas u sameyno
ayay qorshaha iyaga yahaata si haddii dadka uu dhaafana dib ugu daalacdaan youtube-ka dadka ka cabanaya barnaamijka maxaad oran lahayd dadka ka cabanaya barnaamijkayaga anigu barnaamijkan ciddaa jeclaa kuma ammaano cidda aan jecleenna kuma weeraro marka dadka aan barnaamijka jecleen waa gooni laakiin dadka barnaamijka jecel waxaan u sheegayaa sidaad aan hadda saaxiib ku noqono oo ah cadaaladda iyo dhexdhexaadnimada inaan weligay sidaan u wadi doono laakiin qofka hadduu marba qalad kaa fahamsan yahay wax walba wanaag la imaadid kaama yeelayo ma garat waa tahay haddaynu usoo noqono soo guda galno barnaamijka waxtarka wariyaha maxaad is oran kartaa qaab nuucaaba is oran kartaa wariyuhu inuu waxtar u leeyahay bulshada niyahow sanadihii ugu dambeeyey wariyaasha soomaaliyeed dhowr nooc oo kala qaybsameen bulshadan anigu waxba kama qariyo wariyaasha soomaaliyeed waxay cadaalad ahaayeen berigii hogaamiye kooxeedyada laakiin wixii ka dambeeyey nidaamyadii cusbaa ama maxaakiin ha noqoto ama dowladdii cabdullahi yuusuf allah u naxariistay ha noqoto ama tii sheekh shariif tii xasan sheekh iyo tan maanta la joogaba wariyaashu waxay u qaybsameen way ka tageen in yar mooye way ka tageen xeerarkii saxaafadda wariyuhu waxaa laga yaabaa inuu ku luqad noqdo milkiilaha idaacadda ayaa amraya waxay noqotay sida manchester oo kale ama chelsea oo kale milkiilahana waxaa laga yaabaa inuu yahay ama dama jadiid ama xisbigan daljir ama xisbiye kale inuu isaga jiro ama maxaakiin yahay ama fikrad kale aaminsan yahay fikradaasaa laga yaabaa in wariyaha uu ku hadlo marka wariyaasha soomaaliya waxaan leeyahay haddii aad ku hadashid afka dowladda ma xuma waa dowlad soomaaliyeed waad ku hadli kartaa afka ururna waad ku hadli kartaa laakiin waxaa ceeb wariyaha ku ah in idaacaddiisa calashaan halkudhig u noqoto waxaanu naha dhexdhexaad haddana idaacadda laga dhansado inay meel u janjeerto waana wax hadda aan arki karan dhammaanteen wariyaasha soomaaliyeed waxaan leeyahay kuwa idaacadda qaranka maanta u shaqeeya telefishinka soomaaliyeed ee dowladda ku leedaha muqdisho oo adduunka laga fiirsado kuwaas haddii dowladda la garab istaagaan hiilo ama hadal ama xoog ama hanti wax walba ceeb ma ahano waaba dowladdu waa caddaysteen kuwa kale ee u shaqeeya dowladda ururada kasoo horjeedana warkoodu waa cadya laakiin idaacadaha muqdisho ku yaala ee dhanka u jajeeray haddana le dhexdhexaad baan nahay wariyaasha sumcaddooda ku dhumi doonto hadafka milkiilaha taasaan dhihi lahaani waa tahay marka waxaad leedahay dhexdhexaad ha noqdeen idaacaduhu ma noqon karaan milkiilaha ayaa fikrad aaminsan marka kuma shaqaalaysiinayo haddii aad adiga calasha dhexdhexaad maba imaan kartaba maba ku shaqaalaysiina haddaad dhexdhexaad taaba marka inaad hadafkiisa raacdi waa tahay marka waxtarka wariyuhu u leeyahay bulshada maxay tahay baad soron kartaa marka waxtarka wariyaha bulshada u leeyahay waa wada naqaan wariyuhu waxtarka bulshada u leeyahay waa soo gudbiyaha dhacdo xaqiiq ah noocay rabta ha noqoto waa soo gudbiyaha dhacdo xaqiiq ah mar kastana wariyaha soomaaliyeed waa nin islaam ah waa nin soomaali ah waxaanu leenaha dhaqan waxaanu leenaha diin isagoo intaasi ka duulayan waxaa la rabaa waxyaabaha qaldan xataa hadduu arko bulshadana saamayn karto waa inuu si maldahan hadduusa qarin karin xataa si maldahan ilaan annaga hadda reer galbeedka aan la joogno wax kasta wariyaha ma sheegi karo haddii amniga dalka iyo xasiloonida dalku haysto ay dhaawacayaan wariyaha ka gudbayaan ma garad marka wariyahu faa'iidada bulshada u leeyahay waxa weeye waxa xun waa anaa og inuu xaq u leeyahay inuu soo gudbiyo haddana inuu dalkiisa iyo diintiisa ilaashado uu ka tago wixii wanaagsan uu bumbuuniyo ayaa u haystaa anigu inay tahay waxtarka wariyaha inuu yahay waa tahay maxaa looga baahan yahay wariyaha qofka wariyaha waxaa looga baahan yahay mar walba horta inuu ilaahay ka baqo taa muhiimadda koowaad waxay tahay inuu ilaahay ka cabsado uusan u shaqayn qof jaab wax ugu galshay inuusan ku hadlin lacagtu way dhammaanaysaa idaacaddu way dhammaan kartaa laakiin saamaynta aad saxaafadda ku reebatay waa wax taariikhda ku xusi doonto waxaa lagaaga baahan yahay weriye meel walba joog waxaad aragto oo xaqiiq ah sheeg bulshadaadana gaarsii ilaan waxaa taa telefoon wax gaarsiiye meel marka waxaa tahay qofkii wax gaarsiin lahaa wax wanaagsan bulshada uga tag taariikhdu waxa ku xusto ayaa anigu dhihi lahaa mar walbana niiduka inaan u sheegay wariyaasha soomaaliyeed waa tahay haddeer waxaad doonaysaa inaad waraysi soo qaadatid qofaad la ballansan tahay aad doonaysa inaad waraysatid maxaa tallaabada aad qaadaysaa maxay tahay qofka nuucuya ma siyaasiba ma culimo diinba waa qof aan siyaasi ah oo arrimaha siyaasadda ka soo waraysanaysid marka waxaad doonaysaa inaad soo waraysato maxay tahay
waxyaabaha looga baahan yahay wariyuhu inuu ku dhaqaaqo marka ugu horreysa ilaa marka ugu dambaysa wallahi horta waxay ku xiran tahay taa saxaafadda dhowr nooc loo kala qaadi karaa waxaa jiri kara adiga iyo wariye kale is haysta waxaa jira saxaafadda iyadoo general tahay oo guud ahaan saxaafad la dhaho haddana waxaan ku dabaqi karaa aniga fikirkeyga isagoo xumaan ahayn su'aalaha waxaan ka samaysan karaa dhinacaan rabo example adiga iyo wariye kale is haysta ama laba gool hogaamiye kooxda is haysta ama laba siyaasiya isku dhegan aniga dabna kusii shidi karaa waana qaboojin karaa dhexdhexaadna u hadli karaa dhanna waa la jiri karaa qofka fikirkiisa mar walba waxay la socota saxaafadda qofka fikirkiisa waa tahay wariyaha cabdiqaadir may maqlaysaa nuucaa doontaan u wareysan kartaa ya cabdiqaadir may maqlaysaa si fiican kuu maqlaa may maqlaysaa wariyaha maanta wariyuhu marka uu doonayo inuu wax soo waraysto maxaa looga baahan yahay marka uu doonayo inuu wax soo waraysto maxaa looga baahan yahay kule horta marka hore su'aashaada dhowr noocna u dhigi karaa dhowr noocna u fahmi karaa dabcan horta wariyuhu markuu wax waraysanaayo horta waxa weeye si fiican u jilcisa wariyaha si fiican baan kuu jilcinaya wariyaha markuu doonayo inuu waraysi soo qaado maxaa looga baahan yahay muxuu u baahan yahay inuu kasii fekero muxuu kasii gaashaamanayaa waxyaabahaasoo dhan qaabka uu doonayo inuu wariyuhu waraysiga u qaado maxay tahay wallahi su'aashaadu waxay leedahay 100 jawaabood leedahay 100 jawaab ugu jawaabi karaa su'aashaada hal jawaab kaliya ka soo qaado waxaad jeceshaa inaan ku dhaho qalabkii wax lagu duubi lahaa u baahan yahay waxaad jeceshaa inaan ku dhaho waa kow maya 100 jawaab leedahay walaan gey karaaba sax ma wuxuu u baahan yahay ammaankiisa cid sugta ma wuxuu u baahan yahay inuu ka fikiro waraysigan uu qaadayo waxtar ma uu leeyahay bulshada mise ma u laha muxuu u baahan yahay inuu macno ku fadhiyo waraysigan uu xiise leeyahay inuu lahayn ma wuxuu u baahan yahay waraysigiisa inuu ku saleeyo wax hadda socda mise waxaan xiise lahayn dhowr nooc u qaybsami kartaa ma garan laakiin su-aasha saan ku weydiiye waxa weeye waxyaabaha taasoo dhan waa soo gelaysaa inuu qalabka kasii fekero inuu kasii fekero waraysiga uu qaadayo in waktiga uu ilaaliyo waxyaabaha looga baahan yahay macnaha halo may fahamtay hadda wallahi 100 nooc aan uga jawaabay laakiin si fiican u sii sharax bulshadana si u fahanto anna aan u sii sheego maanta anigu suxufi baan ahay waxaan doonayaa inaan qof soo waraysto maxaa layga baahan yahay inaan kasii tabaabushaysto maxaa layga baahan yahay wariyaha wanaagsan inuu kusii taxadaro inuu kasii fekero wariyaha wanaagsan mise wariyaha wariye ama wariyaha wanaagsan wariyaha wanaagsan wariye xun kaba hadli mayno aniga markaan rabo inaad ku waraysto waxaa layga baahan yahay number 1 inaan ku soo waco oo ku dhaho diyaar muuta horta inaan ku waraysan karo okay waa kow waa in qalabkayga wariyinimo ii dhamaystiran yahay haba ugu weynaato ay dhiigayga aan kugu caddeynaa inaan wariye ah adiga waa labo si aad u ogaatid halka aan ka socdo inaad tv ka socdo inaan ka socdo idaacad ka socdo inaad website ka socdo si ay igu suurta gasho inaad adigu ugu aamintid oo caloosha furtid saddexaad waa inaan waqti kaa qabsado adiga afaraad inaan kuu sheego waxa aan kaa wareysanayo laakiin hadda saxaafadda waxay noqotaa lagu dhahay inaa siyaasiga intad wacdid aad ku tiraa uu ku dhaho isaga maxaa aniga iga wareysan rabtaa iisi sheegaysaa waa garta ma garata wariyaha xirfad lahayn weeye way xirfad ma jirto ilaa wariyaha soomaali ugu weyn hadduu yahay xataa hadda siyaasadda waxay ku dabaqan tahay maxaad jeceshahay inaad iga wareysatid waa inaad ii sheegtaa because waxaa laga yaabaa fiiri waxaa dhacda wafdi ka socda dowladda soomaaliya halkan bay yimaadeen finland magacooda ma sheegaayo waxay ahaayeen 3 wasiir waxaan ku iri hotelkooda ugu tagay ay ugu casuumeen habeenka koowaad cashada waxay ugu dhaheen waxaan u baahnaa program saxaaf halkan ku qaban doono wariye Soomaaliyeed oo hadda halkan ka garanayna adaa ka jira way jiri karaan wariyaal iga activesan laakiin iyagu markaana ay garanayaan waxaan ku dhahay isku siyaasad ma nihin hadda wasiirada Soomaaliya right now waxaan ku dhahay su'aal walba shacabku ma idin weydiin karaan kaliya xiriiriya u noqon rabay aniga wax ma weydiin rabay su'aal ma qabin waxay u dhaheen su'aal kasta oo qof kasta oo shacaba maanta nama weydiin karo ma garad warkay sidee ku dhici kartaan haddii aan dhaho hebel soo istaag su'aasha wariye hebel aa u qabtay sheeg dadka hortooda ku inkiri doontaa
oo aad ku dhihin doontaa su-aashaan weydiin sidee u sameynaa anigoo og qaab kasta in loo mari karo saxaafadda haddana iyagaa rabaa inaan ogaado habka iyo nidaamkay jecel yihiin ma garad waxay ku dhaheen haddiiba arrinkaas uu jiro marka haddii arrinta ka dhawaajiyo waxayd arrinta qalbi dhagax waxay ku dhaheen haddiiba arrinta qalbi dhagax ay Finland xasarad weyn ka abuurtay waaba ka tanaasulina dhaheen in wax waraysi ah bulshada ama ay su'aalo weydiiyaan ama aan waqti la qaadano cashadaan tagaynaa bulshadana waa adiga u sheegaysa inaad joogno waqti ma jira waxay ka ordayeen kaliya in qalbi dhagax la waraysto laakiin waxa u sheegay aniga ma daadiinay ku dhabar barnaamijka haddii qof kasta uu xor aheene wacda wari kale laakiin hal arin oo sira idin sheegaya oo ah qof kasta su'aasha uu rabo waa in warqad looga soo qoro haddii qalbi dhagax ku jirtana waa in laga reebo ma garad waa tahay ma joogeen wariyaal badan baa joogaan umaynayaa soo Finland maaha maanta yimaadeen Finland wariyaal badanaa jooga laakiin xasan kaafi xalane inuu joogaan umaynayaa xasan kaafi waa tahay markaa run ahaantii markaynu haddeer usoo dhaadhacno barnaamijkeena gudaha usoo galno maxaad is oran kartaa baa dhibaato uu keeni kara wariyaha aan xirfadda lahayn niyahow wariyaha aan xirfadda lahayn horta wariye maba ahaba ani saa aaminsanaha waay ma garad wariyaha xirfadda lahayn aniga waxaa u aqaanaa waxaa laga yaabaa adigooda wariyaha qofkii aan saxaafad soo baran ama experience u lahayn laakiin waxay noqdeen aniga wariyaha xirfadda lahayn waxaa u aqaanaa wariyaha qabiilka sheegta wariyaha afka qabiilkiisa ku hadla wariyaha qabiilkiisa jecel wariye qabiil kasta caynaya kaasaa u aqaanaa wariyaha xirfad lahayn anigu taasaa u garanaa wariye inta uu qabiil ka hadlayo wariye ma aha soomaaliya tag banaankeeda tag east africa tag wariye kasta wuxuu ku hadlaa afka qabiilkiisa wuxuu buunbuunsadaa beeshiisa odayaal dhaqameedkooda siyaasiyiintooda wasiiradooda ayuu buunbuunsadaa oo ugala weyn intaa waxaa laga yaabaa haddii idaacaddu tahay malkiilaha idaacaddu la reeryahay wasiir hebel in maanta dhan wasiir hebel qadka ku jiro de barnaamijka dhacdooyinka caawa waxaa ku jiro wasiir hebel isagaa wax kasta laga waraysanaa ma aha afhayeenka ninkan laakiin waxaa loo siinaa waa graduation waana aragnay soomaaliya dadka iga dambeeyay dabcan ma garan waa tahay sidee xal loogu heli karaa arrintaa baad u malaynayso niyahow markii idaacaduhu ay hoos tagaan dowladda ma rabo inaan la mid dhiga calashaan idaacadda dowladda laakiin nidaamka idaacadda markii la hoos geeyo dowlad qaran ee soomaaliyeed ee wariyahana imtixaan laga soo qaado codkiisa keliya aqoon ma wariyaha xataa waa inuu cod leeyahay ma garan haddii wariyinimadii qofku soo bartay laakiin bulshada codkiisa aysan kaafi karin xataa anigu wariye uma haysto welito waa waxaa kuu leeyahay wariyinimadu waa hobby waa balwad qofka yaraantiisa leeyahay haddii wariyaha ka waran dhowr shahaado oo soo qaato oo master diyaariyo oo wax walba uu diyaariyo maanta uusan wariyihii dadku aftahan ahayn calashaan ma shaqaynayso marka waxaa la rabaa inta soomaaliya maanta ay tahay anigaa milkiila ah anigaa lacag haysta aniga idaacad furanaya qofkaa rabaana keeni karaan meeshan ama maxamed dhuuqsan ha noqdo ama hikaama walo saaxiibada halkan faranska noogu jiro qofkaa rabaa iska keensanaa marka aniga waxaa isleeyahay dee wariye xun iyo wariye fiican midaba looma fiirin waxaa loo fiirshay ma hadli kartaa ma shaqayn kartaa labaduna waa yaste qofku uu shaqayn kara waan hadli karaa waa tahay arrinta haddaynu ka hadalno sharuurka ama carruurta caanahooda dadba meelo badan ba looga kala yaqaanaa baa layimi soomaaliya arrinta sharuurka haddaynu ka hadalno qaab nuucaa see u aragtaa sharuurka wariyaashu qaatana wallahi horta ani sharuur waxaa u aqoon jiray berigii hore sharuur waxaan u haysan jiray inay tahay baan wariyuhu inuu siyaasi u tago lacag shakhsiyadeedna aan inaan ka qaadan karo sharuur ay hoos imaadaa inuu tviyada idaacadaha lacag u qaybinayo oo aan idaacaddu kula xisaabtamayna sharuura u qoon jiray si warbixintiisa loo dhiibto maanta laakiin waxay maraysaa website iska furanee 40,000 oo website aan leenahay waa ku soo galaa ama waxbaa kaa soo sheegaa ama $1 iisoo dir ama $500 iisoo dir ayay hadda maanta sharuurtu noqotay marka lama waa wax xad ka baxay wax live lagu joojin kara iyo wax maanta microphone loo qabsan kara iyo sheekada waa faray ka baxda taagana marka waxa maaliga oo update laga dhigo iPhone laga dhigo waxba kama dhigi karna arintan waa bariis sii socon doona bariis la celi kara ma waa tahay laakiin markaynu ka hadalno oo kale arrimaha shaqaaleynta oo kale qaab nuucaaba is leedahay wariyaasha Soomaaliyeed marka TV-yada ama idaacadaha baa loo shaqaaleeyaa haddadan ma garan karo kuguma xukumaa inaa adi og tahay laakiin oo hadda adaa i waraysanaysa xaq uma lihi inaa adi su'aal ku weydiiyo laakiin bulshada Soomaaliyeed hadda inta na daawanaysa
siddeetan boqolkiiba dadka u dhuunduleela arrimaha saxaafadda waxaan ka dharagsanahay dadka in lagu shaqaalaysiiyo garabation waxaana example kugu siinaya anigoon reer magacooda sheegayn cidna magaciisa sheegayn waan ognahay idaacad walba cid iska leh reerka iska leh tv walba reerka iska leh iyagaa ku badan kaamiramanka iyagaa ku badan wariyaha iyagaa ku badan xataa kuwa albaabka fadhiya xataa nink milkiiluhu ku reerya ma garan waxaa arkaysaa idaacad muqdisho ku taala oo waxaa arkaysaa 10 wariyo oo profession ahaa oo idaacado hore ka noqda retire inaan la shaqaalaysiinayn kuwa cusub la soo wadanayo waxaa loo fiiriyaa number 1 qabiil number 2 waxaa loo fiiriyaa hamiga iyo dhuunta wariyaha inta la egta haddii wariyaha lejanka ah uu ka rabo $500 xamarna ugu shaqeeyo adigu waxaa xuranaysaa mid hadli kara oo $100 helaya kaasaa loo fiirshaa laakiin looma fiirsho xeerkii saxaafadda ma soo buuxiyey sumcad bulshada ma ku leeyahay xitaa wariyaha sumcadda leh barnaamijkiisa wuu ka saameyn badaya barnaamijka wariyaha caadiga may ku raacsanta wariyaha dhexdhexaadka ee bulshada u dhexeeya programkiisa aan xiisaha lahayn xitaa wuu ka xiisa badaya programka xiisaha leh ee ninka qabiilka aaminsan uu wato ma garan marka iyadoo garabation loo fiirsho iyo baahida wariyaasha Soomaaliyeed ee Afrika jooga maanta oo hadafkooda ama duruufta looga faa'iideysto ayaa qodobka labaad uu ku saleyn karaa qabiil marka laga soo tago duruufta wariyaasha ayaa looga faa'iideystaa qaarkood lagu dhahaa $80 ku shaqeynaysiin qaar $100 ku shaqeynaysiin marka qofka maba fiirin baxeer iyo sumcad bulsho iyo waxa ma qiimeeyo qofka saasaa loo shaqaaleysiyaa maanta wariyaasha Soomaaliyeed mana dhihi kartaa hadda iska daayo duruufta lagu faa'iideysto waa qasab ma garan waa tahay sidee bas oran kartaa wariyuhu inuu ku soo gudbin karaa barnaamij tayo wanaagsan sideese uga qayb qaadan kara horumarka dalka igu soo celi su'aashaas sidee wariyuhu uga qayb qaadan kara horumarka dalka wallaahi hore waxaan kugu sheegay milkiilaha idaacadda ku xiranta milkiilaha idaacadda ayay maanta ku xiranta aniga example waxaan taageeraa waaba example dowladda farmaajo taageera ama dowladda Soomaaliyeed oo madaxweynaha ka yahay farmaajo waxaan ka soo horjeedaa maxamuud ka soo horjeeda oo ah madaxweynihii hore waa example idaacad haddii aan furto adiga aan ku shaqaalaysiinayo waa inaan kuu sheego inaadan waxba ka sheegi karin fadeexadda xukuumadda Xasan Cali Khayr oo aan kugu amro adiga isma maamuli kartid wariye fiican ahaaw mid xun ahaaw hadafkayga waa inaan ku dhaqaaqid waana idaacadaha Soomaaliyeed xeer u yaalo waay maanta waana taa laakiin wariyuhu sidee u soo gudbin karaa magaalada ama gobolka ama deegaanka uu joogo sidee uga soo gudbin karaa muusan ka soo gudbin karin wax fiican oo wanaagsan oo horumara wax fiican wuu sheegi karaa laakiin wuxuu ku saleynayaa inay sababteeda leedahay xukuumadda waa wax fiican wuu sheegaa looma diidana laakiin sababta ay waxaas ku dhaceen inay ka dambeeyay haddii webiyadii ay si fiican usoo calashaan biyo fiican helo soo burqadeen waa inuu ka hadlo in wasiirka beeraha ama wasiirka macdanta arin maanta markan imaaday si kale laguma soo hadal qaadi karo haddii deegaameyn dhacday wasiirkii dib u dejinta iyo deegaameynta ayaa halkan imaaday dowladda Xasan Cali Khayr saan u dhahay waa in calashaan uu la jaan qaado siyaasadda dalka maanta haddii uu mucaarad yana webigaas calashaan suulay biyaha ka suulay ama beerihii bixi waaye waa inuu ku dhaliilo dowladda marka waxaa iskale amarka milkiilaha iskale amarka wariyuhu go'aan ma laha shakhsiyadeed ma laha waa tahay sidee u aragtaa labada urur nusoj ka dhisan waddanka Soomaaliya wallahi niyow ani hadda ma rabo inaan ururkaasaa fiican saxaafadeed dhaho sababtoo ah anigu faa'iido kuma qabo iyagu faa'iido iskuma qabaan bulshada faa'iido kuma qabto marka waa ka gaabsanaa hoggaanka guud ee saxaafadda cidda mudan anigoo wax kasta og cidda mudan iyo cidda isku haysata iyo arrintaas waxaan leeyahay waa geeska kale aan ka aaday waxqabadkoodan ka hadlayna waxqabadkooda beryaha kan waxqabad dardar la yimaadeen wariyaal sameeyeen sidee u aragtaa ka hadlo markaa runta ka hadlo wax horta markaa tahay hoggaan saxaafadeed maxay dadku ku ogaan karaan inaad tahay adiga hoggaan saxaafadeed haddaadan weligaa wariye la dilay ee la duugay xaaskiisa aadan weli u tegin
oo aad caruurtiisa soo salaamin oo aadan dhar cid weliga u gadin oo aadan wicin u tacsiidin yaa u tahay hoggaanka saxaafadda marka haddaa iska sheegto anigu hadda waa dhihi karaa dee urur hebel oo ah hoggaanka saxaafaddan leh waa iska dhihi karaa laakiin markaa taas aragno ayaan dhihi lahaa ama ururkaasaa fiican anigoo taas u daliishanaya waxna ma ka arkin weli laakiin maalin dhaweyto nusaj garabka maahir jaamac maahir baan u maynayaa garabkaas groupkaasi waxa ay sheegeen in lacag badan gaarsiiyaan agoomihii dabcan iiga sheegay wax caddeena ma lahayaa oo ah inay gaarsiiyeen kolley waa laga yaabaa inay caddeen hayaan waayo runaantii waxa weeye sadaqaduna kuma fiicnaba in sawir laga qaado oo la caddeeyo la yidhahdo waxaan ayba lasiin laakiin asriga waxay noqota dee markaa dhiibaya bisaa sawiraysaa marka waa ku mahadsan yihiin maadaama agoonta gaarsiiyaan baynu leenahay haddii ay gaarsiiyeen anigu hadda ma garan kara ilaaha iga og haddii ay gaarsiiyeense waa qolada dhabta ah ee saxaafadda u taagan laakiin haddii ay hadleen anigu dabcan waa aqaanaa xirfadaha meediyaha haddii ay dhaheen waa gaarsiin anigu ma qaadi karo go'aan ma qaadan karo laakiin haddii ay gaarsiiyeen iyagaa markaa anaga taageersan anaga dhan ba iga taageersana aad iyo aad may waa gaarsiiyeen wayna soo bandhigeen wayna sheegeen ruhantii ani ma arkin mana go'aamin kara laakiin sidaan ku ogaa hoggaanka saxaafadda wariye la dilay iyagoo familkiisa wacaaya ama carruurtii agoonta xafidaaya ama biil meel u saaray waana ognahay mashruuca lagu qaatay wax kastoo lagu helo haddii carruurta $100 laga gaarsiin waayene dee dabcan waa qof kastii aakhiradiisa dabcan iyo inaad sheegatid inaa hoggaankii saxaafadda tahay taasaa wareer ah waa tahay inta aynan soo gabagabin waqtigeena ugu yare maxaad u soo jeedinaysaa wariyaasha soomaaliyeed ee dhinaca xun wax ka eega arrimaha qabyaaladda ku shaqaysta dhibaatooyinka propagandada beenta waxyaaba noocaas maxaa usoo jeedin lahay dadka horta maanta waxaan rabaa halkan inaan arrin yar kaaga sheego intaanan su-aasha dabcan haddaa ilaaban waa igu soo celi doontaa aniga horta weligay ma arkin weriye soomaaliyeed oo meel wax taageersan sida ila tahana wariyuhu ma aha in la ogaado fikirku isaga aaminsan siyaasiga isaga uu taageero madaxweynaha hataa waa madaxweynaha ummadda soomaaliyeed madaxweynaha wariyaha aniga sida ila tahay sida sharciyadda tahay madaxweynaha hadduu xumaantiisa iyo wanaaggiisa kasoo tagba madaxweynaha ama dowladda markaas jirta ama xukuumadda markaas jirta wixii ay wanaag leedahay soo gudbi wixii ay dhaliin leedahana soo gudbi waa sida saxda ah saxaafadda laakiin maanta waxaa wariye soo qoraya khayr allah siiya xasan cali khayr allah siiya farmaajo haddii aa hoos ka weydiiso waxaa leedahay nin maxaad ku aragtay nin wariyaa tahay dhexdhexaad maxaad ku aragtay ducadan wuu duceyn karaa isaga waa xaq saxaafadda marka laga soo tago qofku wuxuu leeyahay awood kale oo wuxuu rabo ku samayn karo markuu keligiis yahay wariye qofku wuxuu yahay mataqaan markii uu ama tv fadhiya ama website qoraaya oo dadka la hadlayo wariyeya laakiin shakhsiyadiisa isaga wuxuu rabo qaadan karaa taa uma diidani xorriyadiisa laakiin haddii aad aadi ka waran aniga waxaa dowladda xasan cali khayre maxaa ku taageeraysaa wuxuu ku leeyahay allah ku caafiya qabiilaa la jiran tahay reerkii wariyaha taagan yihin waa ujeedaa waxaa la rabaa marka wariyaha horta fikirkuu aaminsan yahay yaan laga dhadhansanin yaysan bulshada ogaanin yaa bannaanka iskeenin haddii kale soomaalidu waxay ku mamahdaa war la qabaa xiisa male haddii aad taageersan tahay qaybo ka mid a wasiirada ama kuwii dhacay hore ee caraysan iyo kuwa maanta jooga warkaaga markaa soo qortay anigu maba daaban karaba sababtoo waxaa aaminsantaa ku ogahay ma garan aad iyo waa ra'yi fiican wey waa ra'yi fiican marka waxaan leeyahay ciddaa rabtid taageer ciddaa rabtidna adiga ku taalaa shakhsiyadaada laakiin isku day bulshada inaad usoo gudbisid xaalka markaa jira inaad ku cabirtid ilaahay caqligu ku siiyey iyo xeerka saxaafadda isku jajabi wixii kuu soo baxa markaa bulshada usoo bandhig laakiin khayr allah siiya xasan cali khayre iyo khayr allah siiya farmaajo iyo meel baa u badataan leh marka laga hadlayo haddeerto wadamada caalamka oo dhan aan joogno oo kale wadanka Finland Sweden wadamada caalamka meelo badan wadanka China oo kale Japan oo kale waxay ku dhisaan saxaafadoodu wixii wanaagsan u bay sheegaan wixii xun ma sheegaan wayna dhisantay oo waad aragtay oo de Japan journal soo qoraya ama wax soo qoraya ama idaacad ama TV soo qoraya wax xun arkimayso wuxuu sheegaya horumarka heer fiicanna bay gaadheen sidee loogu dayan karaa kuwa saxaafadda loogu dayan kartaa waxaa lagu dayan karaa soomaalidu iyo Japan waxbay ku kala duwan yihiin soomaalidu waa dad laba u qaybsan dadna aday ku taageeraan dadna ay taageeraan
ma garat laakiin Japan dadkooda waxa ka go'an dawladnimadooda cidna ma taageeraan wasiirna ma taageeraan qarankee taageeraan qaranka ma garat qarankuna ma duma haddii dadku daacad ka noqdaan Soomaalinimada anu waxaan dhihi lahaa wariyu wanaag ha sheego qeer Allah siya ku daro laakiin hadda mucaarada leena oo u baahan xataa ayaga laftirkooda daawo mucaaradka dawladda Soomaaliya waxay u baahan yihiin xaqiiq muxaafadkuna waxay u baahan Japan laakiin mucaarad male waa wada muxaafad ayaga dhanba marka kuwa waxay dhinaca positive kale in loo adeegsado kuwa waan jeclaanayaa insha Allah inaynu gaari doono heerkaas oo wariyaasha Soomaaliyeed oo dhan ay ka qayb qaadan doonaan dhinaca wanaaga Cabdiqaadir waan soo gabagabeynaa barnaamijka barnaamijka waxtarka wariyaha maxaad is oran kartaa bulshada Soomaaliyeed iyo wariyaasha uu faa'iido u leeyahay inta su'aal u gelin qof kamid ah saaxiibadaada ayaa wuxuu weydiiyay booska adigu maad qaranka taageertid adaaba mucaarad adoo maadsan waxaan rabi lahaa inaan uga jawaabo anigu qaranka waa ka jeclahay anigu qaranka waa taageeraa aan qarankeyga nacana ma garanayo cidaan jeclaan doono waa dhulkeyga waa qarankeyga waa waxa maanta lagu aqoonsado waa meesha aan ku dhashay horta su'aashan ayaaba ila muuqata mid qalad qaranka ma taageerta qaranka qofkii nacab Soomaali ma baahan laakiin sida hadaad gabartahay hadaad wiiltaaba hadda ma garan karee qaabka wax u socdaan magaca idhiba raalli ahaaw magacaas haddii aqri kartaa iga caawi Mustafariyan Wiis qaranka waa ka wada simanaa jaceelkiisa adiga xataa ma necbide laakiin waxaan aniga ku kala duwanaa nidaamka wax u socdaan sidaas ila muuqataa iyo sidaas ila muuqataa isaasan jeclaan lahaa isaasan jeclaan lahayd way mooyee qaran ma necbi aniga dawlad Soomaaliyeed ma necbi tan dadku doorteen iyo tan baarlamaanka doorteen intaba waa dawladeeda wax ku faano aad iyo aad waa mahadsantahay su'aashaas aad uga jawaabtay waan kaaga mahad celinaya barnaamijka waxtarka wariyaha maxaa is oran kartaa wariyaasha Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waxtar buu leeyahay waa u soo laabana su'aashaada nadiifo shadar oo fiilay la joogto oo gabar saxaafiyada ayaa iyana su'aal weydiisay oo ah laakiin dawladdan waxa ku tahay mucaarad tiri saaxiibo ma aho runta sheegayda nadiifo su'aashaada way ka yara qurxoonta su'aashii hore aniga dawladdan waa mucaarad karaa qaran aniga qaran ma diidin laakiin dawlad waa nidaam la dhisay waa dawlad Soomaha nidaamkaas dawladda ma mucaaradsan laakiin sida wax u wado ayaan aniga dhaliilsanahay haddii halkan inkastoo programka hadda cawada aan ka hadlayna uusan quseynin maxaa u dhaliishan maxaysan aynu saaxiibkay barnaamijkan caawi ugu casuumay haddana haddii asraalkay ku sharaxi karaa waxa dawladda ku dhaliilsanay inta uga gudub insha Allah waa garta waa sababta ku idmada adiga hay su'aasha soo ilaa ku shafo barnaamijka waxtarka wariyaha gabagabadii maxaad is leedahay u soo kordhin karaa bulshada Soomaaliyeed iyo wariyaasha Soomaaliyeed faa'iido wallahi niyo horta waxaan kaaga mahad celinaa waqtigaada qaaliga ah nin la jana waa tahay inaad wareysatid oo waqtigaada qaaliga ahna ku bixisid wariyaal kala duwan waxay keeni doontaa ugu dambeyntii in bulshada Soomaaliyeed ay ka helaan dhaxal fiican ay ka helaan waxay dugsadaan oo xigmad ah iyagoo xataa iskuul u aadin saxaafadda inay ka helaan halkan college fiican wax wanaagsan halkan inay ka helaan ay dhaxli doontaa ana taariikhda dhankeeda kale kugu xusi doonaa insha Allah aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadba sida sharafta iyo karaamada iyo qiimaha leh aad waqtiga qaaliga ay siisay si markaana barnaamijka igala qayb qaatay aniga iyo Cabdiqaadir Booska iyo dhammaan inta la daawanaysa inta la daawan doontaba waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo daawashada aad daawanaysaan barnaamijkan live to live ee waxtarka wariyaha qofka barnaamijkan ma aha barnaamij wareed waa barnaamij documentary aan ku ururayno wariyaasha Soomaaliyeed meel kastoo ay daafaca caalamka joogaan inaan ugu talagalnay in aan ku ururno barta YouTube-ka taariikh nololeedkooda iyo waayahooda saxaafadda waa kaaga mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad saaxiib thank you walaalkay qaaliga adna sidoo kale waqtigaada qaaliga ah iyo bulshada Soomaaliyeed daawanaysa waqtigooda qaaliga adna dabcan taariikhda ku xusi doonta ku leeyahay bal adna waxaan kugu talin lahaa inaad sii wadid programkan wariyaal fara badan ku casuuntid bal aan isla qaada dhigna fikirka qofka iga horeeyay oo u aaminsanaa iyo kan maanta aniga aaminsanay ka soo socda iyo marka isku ceelisid bulshada go'aan gaar doonta inta lagu gaarin thank you very much waan kaaga mahad celinaya Cabdiqaadir Booska aad baan kaaga mahad celinaya waad ku mahadsantihiin daawashada iyo waqti qaaliga aad doorteen waa Cabdisamed Shibiin oo idin socodsiinay barnaamijka waxtarka wariyaha dib intaan kulmi doono haddii ay barnaamijka noqdo waqtigiisa si live oo mar labaad waxaad uga daawan doontaan Al Jazeera Somali News
iyo weliba SBS TV sidoo kale youtube-ka ayaad ka daawanaysaan haddii barnaamij noqdo barnaamijkan waxaad ku qoraysaan waxtarka wariyaha dhammaantiin ee bahayda sharfo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.